Assalaamu calaykum. Daawade ma ogtahay in ururka loo sameeyay inuu u dhexeeyo dowladaha iyo dunida lagu magacaabo Qaramada Midoobay amba United Nations, kaasoo la aasaasay 24-kii Oktoobar 1945 iyada oo lagu bedelay ururkii ka horreeyay ee lagu magacaabi jiray Midowga Ummadaha amba League of Nations. Daawade, ujeedada Qaramada Midoobay waxay ahayd inuu ka shaqeeyo xidhiidhka wadamada xubnaha ka ah iyo inuu ka hortago dagaal ka dhex qarxa wadamada caalamka. Qaramada Midoobay waxaa lagu bilaabay heshiiska 54 wadan, laakiin sanadihii ka dambeeyay ururku wuu sii ballaadhay, waxaana maanta xubno ka ah 194 wadan. Qaramada Midoobay waxaa maanta fadhi u ah magaalada New York ee wadanka Mareykanka. Wuxuu xafiisyo waaweyn oo kala duwan ku leeyahay meelo kale oo dunida ka mid ah, sida xafiiska Geneva, xafiiska Nairobi, iyo xafiiska Vienna. Guud ahaan, Qaramada Midoobay waxay ka kooban tahay 6 waaxood. Ta koowaad waa Golaha Sare oo ah waaxda maamulka guud gacanta ku haysa. Golahani waa mid loo dhan yahay oo dhammaan xubnaha ururka Qaramada Midoobay ay ku leeyihiin matalaad iyo cod siman. Ka labaad waa Golaha Ammaanka. Waaxdani waxay go'aamisaa xalka ammaanka iyo nabadda. Inkasta oo ay sidaas tahay oo ay ammaanka meelo badan oo dunida ka hirgeliyeen, haddana hubka loo adeegsado dagaalada iyo xasillooni darrada waa wadamada ugu badan ee soo saara, isla markaana iibiya. Wadamadaasi waa 5 dal ee la baxay 5 rigliga ah ee Golaha Ammaanka Permanent Members, waxayna leeyihiin codka diidmada qayaxan ee loo yaqaan veto power. Marka 5 rigliga ah laga yimaado, waxa Goluhu ka kooban yahay 10 xubnood oo kale oo aan rasmi ahayn, labadii sanana mar la bedelo amba lasoo doorto. Ka saddexaad waa Golaha Dhaqaalaha iyo Bulshada, oo loo soo gaabsado ECOSOC. Waaxdani waxay ku shaqo leedahay dhiirrigelinta iyo horumarinta dhaqaalaha caalamka iyo horumarinta bulshooyinka. Ka afraad waa Golaha Xoghaynta. Waaxdani waa maamulka iyo soo ururinta akhbaarta iyo macluumaadka ururka Qaramada Midoobay u baahan yahay. Ka shanaad waa Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ah International Court of Justice, iyo sidoo kale Maxkamadda Dambiyada Adduunka International Criminal Court, oo kala laba ah. Waa waaxaha u qaabilsan cadaaladda iyo xisaabinta dambiyada waaweyn ee caalamka laga galo. Maxkamadda Dambiyada waxaa ka biyo diiday 54 wadan oo qaaradda Afrika ah, balse lagama dhageysan. Daawade, ku darso oo wadamada ammaanka ilaalinaya hogaamiyayaashooda iyo ciidamadooda midna lama soo taagi karo. Ka ugu dambeeya waa Golaha Kalsoonida. Golahan oo aan shaqeyn tan iyo 1994-kii. Daawade, intaan ayuu ku egyahay mowduuceenu. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.